iskaashanaya wanaagii horumar jecel waxay doonaan qabsadaa walaalo iskaashanaya wanaagii horumar jecel waxay doonaan qabsadaa halkan sagootiina caamilo xirsi oo gudoomiyaha garabka haweenka ee Sheffield South Yorkshire ka bacdi markii intii yareed gudoomiyaha iyadoo shaqo badan qabatay xisbiga oo isku dubariday ilaa Manchester Scunthorpe iyo Yorkshire home tahayba caawa waxaan ku sagootiina halkan oo sharaf ugu sameeyay caamilo xirsi iyadoo ka degaysa wadankii hooyo doorashooyinkeena u soo socda taasoo ay doonaysa muraaqib ka noqoto doorashooyinkeena u soo socda imikana waxaan ku wareejinayaa Amina Xirsi Amina Shaal oo ah mujaahidad ka shaqaynaysay xusbiga arrimihiisa muddo waxoogaya intii uu ku soo jiray lamaa iyo ururka ka soo wareegay xusbiga wareegay wadanina ku jirtay Amina waxay si wanaagsan uga shaqaysay gobolka South Yorkshire waxay dad badan oo xusbiga ku soo biiray oo taageerayaal mug iyo miisaan balaha kaga soo biirisay Scunthorpe waxay kaga soo biirisay Leeds waxay kaga soo biirisay Manchester Liverpool Sheffield ugu badnaanteeda intii ugu badnaatay Sheffield bay ahaayeen Amin waa qof si aad iyo aad u wanaagsan noola shaqaysay waa xubin adag waa xubin firfircoon barinta haddii aan la yidhaahdana waa baxaysay dalkii hooyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inta hadhay ee guusha ka hadhay ee labada weegana inay xaggaa shaqada ka sii wado iyadoo shaqadan xaggaaba ka haysay markaa caawa waxaa halkan isugu nimid ee ugu weyn waxa weeyaan sagootiga Amina Xirsi bismillah aad baan idin salaamaya marka hore waxaan ka hadlayaa anigu laba qodob mid waa Amina midna waa wadaniga wadankii midna waa gudida shaqeeya saddexda qodob baan ka hadlayaa mid waa Amina waxaan filayaa historygeeda haddaynu ka sheekayno caawa oo dhan ma soo koobi karayno waa leef dhaxaadkii wadani waxaan filayaa Soomaalidu caadaynu leenahay qof aan libin lahayn baynu siinaa qof kalena ma siino Amina waxaan filayaa waa qof lagu qaaliya kollay nin ragina uu garanaya nacsina loo sheegi maayo Amini wadani halku maraya dadka gaarsiiyey ilaa bilow ilaa dhammaad ilaahayna waxaan uga baryayaa Amina inuu nabad qab wadankii ku geeyo iyadoo guusha sidana oo wadaniyo guulaystay iyo Cabdiraxmaan oo madaxweynaha iyaga ah iyadoo gudoomiyaha Sheffield inay soo noqoto ee ilaahay uga rajaynaya midna waxaan leeyahay wadaniga Somaliland Amina waa in la soo dhaweeyaa inta la isu tago Amina la soo dhaweeyaa Sheffield dad hore ka tagay laakiin dadka hore dadka dhaxays kaga jiray laakiin waa kuwa libaxyadii Sheffield dadkii hadday adduuntay hadday xusbiga isku dubarikatay hadday xusbiga tay waa qayb nagu qaaliya la soo yaabinana waxaan leeyahay safar salaama dhulku hooyo aabo ilaahay ku nabad galo بسم الله الرحمن الرحيم واحد هلقا isugu dhimi caawa asal sharafeed dad caawa waxay halkan ugu wada joognaa waa sagootinta Amina Xirsi Maxamuud oo ah halgamaa aad iyo aad u weyn waa gudoomiyihii garabka haweenka oo ka dhoofaysa magaalada Sheffield ariga Ingiriiska kuna sii jeeda dalkeedii hooyo oo ka qayb galaysa ololaha ama doorashada Somaliland ka dhici doonta dhawaan bisha November 13keeda عشان شرفتن قدومياش مريا قدوميه مريو قدومي كحيك مريو قدومي كحيك لبعض مريو حوكياش مريان قدومي بدك كده ودتعي وحنوالي عاد نصيب الله منا أما أسي سوتينا عاملة وهالجماعة هاي وهالجماعة دي حسب جاهي وولي بقى هاي لفنبرتي نقالة حسب جا بقى صوت يوكشن هاي قبل كصوت يوكشن هاي waxay xisbiga u qabatayna waynu wada ognahay waxaan filayaa kolley madaxdii xisbiga wadani waa u diyaar kolley Amina
ilaa iyo heer qaran ilaa madaxweynaheeda markaa aad iyo aad baanu kolley anagu usii sogoteen haddaan meesha fillahay intaasaan kaga baxay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane maxamed runtii waxaan caawa halkan isugu nimid oo ay daaran tahay casho sharaftani sidii horeba looga dhawaajiyay xubnihii iga horreeyeyna ay u sheegeen inaanu sii sogotino aamino xirsi oo runtii qof nagu qaali ahayd sida la sheegay aniguna aan ka markhaati kacayanahay lafdabartii xisbiga hadday noqoto abaabulka hadday noqoto dhaqaalihiisa runtii waa qof nagu qaaliya annaga marka waxaanu caawa halkan ugu sii sagoteynaa iyadoo kusii socoto kusii jeeda dalkii hooyo siday uga qayb gasho kana mid noqoto muraaqibiinta kana qayb qaadato abaabulka iyo ololaha xisbiga ee hadda waddankii ka bilaabmay inagoo dhammaanteen wada rajaynayna inuu xisbigu guulaysto waxaanu leenahay jidku toobiya ilaahay ku nabadgeliyo soo nabad noqo adigoo nabada waana mahadsantihiin markii waxaan halkan caawa igu sameeyey wadani Sheffield gudidayadii oo anagoo laba kooxood kala ah kooxdii hore iyo kooxdii dambe baan isku jiro maasha Allah labada kooxood baan waafaqana labada kooxoodna la shaqeeyo ilaahay bay mahad u sugan tahay maradaan macaawa halkan igu bixinayaan anigoo doonayna barakaad ilaahay ilaada state subaxnimo ka baxasho oo aan u socdo dalkii hooyo aan doonayna inaan manaaqibiinta ka qayb galo haddii Allahu yiraahdo horena aan isaga register gareeyay aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya casho sharafta quruxda badan leh ee qiimaha badan leh ee weli baan idinka raagay waan idinka soori garanaya soori ka ahaada aadna wada mahadsantihiin insha Allah inagoo nabada iyo idinkoo nabada aan isku soo noqon doonaa insha Allah billahi kariim sweshada baynunahay ayaha wadankooda raba sweshada baynuna